saddex qodob mid waxaa weeye warbixin aan siin saan u nimid fursad fiican sumaan helin waqti badan baa ka soo wareegay waagaad nagu soo dhaweyseen aad sababa walaashii nagu soo dhaweeyay badankood halka waa ka aragnaa muddo sanad iyo hadda 2 bilood kasoo kulamo gaargaar oo badan aan odayada qaar isku aragnay bal warbixin yar oo kooban inaan ka siino marxaladda aan soo marnay xilliga asaga ah intuu codka yar oo inaan yara xabeebsana bariyan aad u hadlayo midda koowaad midda weeye midda labaadna waxa weeyaan inaan idinla socodsiino xaalado cusub oo jira oo tashigiina looga maarmeyn iyo bal fikirkiina inaan dhageysano ayadana talada aan siino taladiina aan siisaan saddex qodob baan caawida ku yeernay waxaan ka bilaabaynaa waad ogeedeen oo annagu 24 sano muddo ka hor yaan dalka ka baxno dagaal na lagu qaaday dagaalkaas hadda idinku goobjoog wada haydan dhibaatada ugu badnayd ku dhacaysay wada markaa kuma noqon mahayo sanadkii laga soo tagay bishii October 22keedii waa tii aan heshiis ku saxanay dawladda Ethiopia Asmara heshiiskaas oo dhammaan heer dawlad federaal iyo heer dawlad deegaan ba ahaa waataas nimid sida sharafta noo soo dhaweyseen ka shacab ahaan ka odayaal ahaan ka deegaan ahaan iyo ka dawlad ahaanba runtii heshiiska oo aan laf wixii xaggeeda ahaa 100% way fulisay ciidankeedii oo dawladda ku wareejisay hubkii bay ku wareejisay si nabadgelyo ah ayay u bilowday in xaqeeda ku raadsato oo ay dhaqdhaqaaqa siyaasiga u samayso waxaa ka mid ahaa in xisbi la diiwaan geliyo si aan uga qayb galno dhaqdhaqaaqa siyaasiga siyaasaddu ma suuroobayso dhanna kama qayb geli kartid haddaadan xisbi siyaasi aan noqon runtii shuruuduhu marba way sii kordhayeen maanta waxaa aan dhammaystirnay muxuu ahaa shuruudihii xisbiga laga rabay 10,000 oo xubnood oo 5 dawlad deegaan oo maamul ka socda iyo shuruucdii xisbiga uu lahaa annagoon hadafkeena iyo ujeedadaan leedan ka tegayn in la waafajiyo wixii dalka ka khuseeyey runtii waxaan ku guuleysanay shalay oo warqadii u dambeysay la gudbiyey waxaan ka diiwaan gashanahay dawlad deegaanka Oromia dawlad deegaanka Harar dawlad deegaanka Dirdaba dawlad deegaanka Addis Ababa iyo dawladdeena annagu aan lahayn dawlad deegaanka Soomaaliyeed ahayd taa waa iska warbixin guud aan siinayo waxaan rajaynaynaa mar dhow inay soo saari doonaan yani inaan shuruudihii buuxinay waxaan damacsanahay annagu doorashada ka qayb galno waxaan aaminsanahay inaan u taaganahay xaqa shacabka Soomaaliyeed sida waayihiisa uga tashan lahaa ay ka tashigu dadka waxay u haysaan oo kale inuu go'o dalku ay ka tashiga waxaa mid dhulka inaad wada ugu noolaato inaad xor ku ahaato dhulka lagu gumaysan qof kale mid isku gumaysan inaad khayraadkaaga adoo wax ka maamulato ganacsiga dhaqaalaha shaqada inaad leedahay dadka kula deganay marti ku ah adduunka waa soo dhaxgalay anagoo ilaa laga bilaabo Alaska ilaa New Zealand waa adduunka labadiisa arif markii saa loo soo wareego shacabkeenu qoomiyada kale dhex degan yihiin waana gol lahayd dad walaaleena oo geeska Afrika wada degannahay inaan wada deganaano annaguna dhulkooda aan tagno ku nool dhulkeena yimaada ku noolaadaan laakiin qolo walba waxa weeye daaxur walba inoo meeshiisa si uu daaxur ka noqdo wala kale uu daaxuraysa ma ogolin taa waa mid guud weeye ujeedada hadafka ururkan wuxuu u dhisan yahay waxa weeye shacabkan xuquuqdiisa meel kastoo la gashaba ama ha qaraaraat ama ha macaanaat inuu istaago waana kii uu ku asaasmay mana ka leexanayo xeerkan u gudbinay dawladda Itoobiya baa ku qoran ururkan wuxuu u dhisan yahay xaqiijinta ay ka tashiga shacabka Soomaaliyeed magaca ururka ujeedada ururka uu leeyahay calankiisa waxaasoo idil waa shuruudaha lagu diiwaan gelinay marka dawladda loo gudbiyo ururka hay'adda federaalka ee NEBA la yiraahdo hay'adda doorashooyinka iyo xisbiyada way ansixisay heerkaas wax walba ku qoran marka sharcigu dalka ka yahay calankeenu inaan meel walba suranayo wadanka sharcigu ka yahay dambi ma aha waxaa la yiri calaamadani waa la diiday calaamadu dhammaan ururada Itoobiya waxaa la yiri wax dagaal muujinaya waa in la bedelo calaamadani waa qori qalin bay ahayd waan bedelno waxaan ka dhignay galayd ama gorgor wuxuu rabaa hada shimbir baan qaadanay qaarkood waxay leeyihiin waa suufiyo waxay qaateen waxayna la yiraahdaa waxa kama qabno laakiin waa shimbir qaali dalkeena ka marka waa qiimo badan buu noo leeyahay
waa shimbir il dheer meel fog wax ka arka meel shiish dheer marka annaguna waxaan rabnaa shiishkeena inuu dheeraado baan doonaynaa ujeeddadu saas weeye shiish dheer baan leenahay shiishkeena inuu meel fog gaaro oo dadkan dantiisa meel fog aan ka aragno calaamadda waan qaadanay calanka waan qaadanay hay-adihii federaalka cilaaqaad fiican baan la leenahay wasaaradda muxuu ahaa nabadda hay-adda nabad sugidda kulamaan yeelana mar walba warbixin baan kala qaadanay amniga dalka amniga dalka dan baa noogu wada jirta wixii khatar gelinaya hay-adda muxuu ahaa dowladda u sarreysa xafiiska prime ministerka kulamaan la yeelanaa warbaahinta guud ee Ethiopia si fiican bay noo soo dhaweysaa oo haddaan hadda sabab tago shir jaraa'id qabto maalinka wada joogayaan nasiib daro laakiin tii dalkeenu lahaa ee aan dadka ka wada dhaxaysay haddaan shir jaraa'id qabanno waayadan dambe nama jecla waan u iman doonaa arrimahaas waddankan sharci baa la dejiyey sharcigaana na xukuma waxaa jira xisbiyo ama dowladda ha haysaan ama ha noqdaan mucaarad way u dhaxeeya adeega dalka u dhaxeeya gaadiidka u dhaxeeya waxaa u dhaxeeya idaacadaha xafiisyada dowladda u dhaxeeya laakiin annagu waan ku qatanay waxaan dareemaynaa weli inuusan hoos soo daadegin sharcigaas hadda sababa dowladdu waxayna siisay xafiiska ugu weynaa xisbiyada mucaaradka xafiiska ugu weyn baa sabab ku leenahay 10 qol weeye meeshii ugu qiimo badneed laga haar meel ay yiraahdaan oo bangiyada muxuu ahaa ganacsiga ka soo horjeeda way ka soo baxeen dowlad deegaanka Addis Ababa codsigan u geyno isla maalinkii uu fuliyaa waxaa weyn shacab 40 kun oo Soomaaliya ku nool weligood mustawaqyo lagama siin jiray Addis Ababa waxaan ku guuleysanay markaan la xaajoonay in loo sameeyo mustawaqyo gabar baa joogtay meesha xarshin ka timid maalinkii hadlaysa maayarka markuu joogo waxay tiri 35 sano ayaan joogaa Addis Ababa ganacsiga ugu weyn baan ku leeyahay mustawaqyaan leeyahay mar alla markaan rabo mustawaqyaha in la cusboonaysiiyo waa inaan xarshin u ka cabay tiri oo diyaarad fuulo intaa bixiyo ama waddo maro marka xuquuq soo kuma liibata asaasada joogo waddankana waxaad leedahay waa waddan Itoobiya waa la wada leeyahay maayarkii runtii wuu ilmeeyay markii Soomaalida u dhageystay maalinkii baa la bilaabay wiigiiba 253 oo mustawaqyo ayaa la siiyaa hadda dadkii Addis Ababa joogay dadaalkii ay jabhadu samaysay bay ahayd iyo balanta shacabka Soomaaliyeed oo qaadnimo ay joogaanba waxaan nuna shacabka Soomaaliyeed annaga shacab Soomaaliyeed buu noo yahay dhammaan waa in la siiyo dhammaan in la siiyo way marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed si siman waa loogu qaybiyaa ayadoo la fiirinayo deegaanada kala degan yihiin ayadoo la fiirinayo qofka inta meesha uu joogay dalka uu deganaa annagu Soomaalida wakiil baan ka nahay deegaanka markaan joogno inta degan kaliya ma Soomaalida baan wakiil ka nahay meel ay joogto qofka Soomaaliga waa inuu deegaankeena lagu ceelin Itoobiya waa in lagu ceelin annaga midalayna waagi aan jabno qaxnay meelo badan Soomaali degan tahay ma tagno laguma ceelin tanna waa in la Soomaali lagu ceelin waana u sheegnay maayarka waxaan ku niri Soomaali annaga ku wakiila waan xaqooda la siiyay waxaan ku guuleysanay 3 laami waa loo ballan qaaday dhiiqada meesha ugu wasakh badan baa boole meeshii degan yihiin laamigii u horreeyay waa la sameeyay laami waa meeshii dhulka looga sameeyay meeshii u weynaa main street laami waa looga dhigay waxaa kaloo loo ballan qaaday ka cabaadeen waxay ahayd ijaarka qofka Itoobiyaanka kale ee Addis Ababa jooga ama guryaha ay galayaan 2 kun baa lagu galaa guryaha ayaga 10 kun baa laga qaadaa 10 kun baa laga qaadaa waliba 2 kun way seexaan oo baada hadday ilmahooda ilmaha kale ay dagaalamaan kuwooda waa la xirayaa kan kale waa la sii daynaya waxyaabahay cabashadii ka gudbeen baa ala kulli xaal waxaa weeye haddaadan dantaada iyo gartaada sheegin ma helaysid waxaan ka wadaa marka saasi caasimadii dalkan hadda